السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان إذكو سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين مروال بيتو الديادة كسوغنتهين وواسكي تقبلوها قبلو فارح ولا الكيس معوكي كيرا بشير بالله متاناين حسن قرر سعيب كيس قرشو درس كيس كنو لو رونا قرسي كوسا هاجاب بكجا لقتي معان الشورية بناوين شنطة بقى بقوري دمانتين وإذا السلام هيا سيشير قرية ميول البيتو ديودا كيسو انتهين لبدا مالين وحاوي حالد وقسنتا لكن وين حقيقة لغا شيغا وين ريالتي لا كور استاغاوي قولي غورنيمو مدحوينه محمد عبد الله فرماجو حاليتو يوسو غاري دلka Mareykanka insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo si wanaagsan oo qurux badan yaa loogu soo dhaweeyay khudbadiisa waa taawan doontaan haduu Ilaahay yiraahdo uu ka jeedin doono golaha qaramada midoobay meel kastood adduunyada kaga sugan tihiin soo dhawaada si share gareeya gaarsiya page kale idinku maasan aadiya social media iyo media Soomaalida waxaad ka daawanaysaan rag fashilmay oo madaxweynayaal hore ahaan jiray oo idaacadaha taagan qaarkoodna ay booteenayaan qaarkoodna ay dhaaranayaan waa la kor istaagayaa waa la falanqeynayaa si taaba looga hadlaya inta aanan horta hawshaas gelin insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo reer Mareykan iyo dadka Soomaalida community-ga Mareykan jooga ma sha Allah farxad bay noo tahay inuu madaxweynaha caawa nagula sugaya dalka Mareykanka uu soo gaaray si wanaagsan oo qurux badan baan soo dhaweyn doonaa insha Allah hadeena wax isbedelin oo xaalad degdeg aysan imaan insha Allah haduu leeraado anoo dubuloon madaxweynaha waa u tagi doonaa hadii ay xaalad isbedesho oo sida ku socoto madaxweynaha waxa laga yaabaa insha Allah haduu leeraado inuu dalkii dib ugu noqdo maadaama ay garaysaa rag dalkii qasayaan aad iyo aad baan madaxweynaha u soo dhaweynaynaa guuliga gobonimo aan leenahay ma sha Allah idaacadaha Soomaalida waxaad ka daawanaysaan saaka ilaa shalayto in madaxweynayaashii horeeto ee fadhiidka ahaa ee qaarkood dalkan cadawga gacanta u geliyay qaarkoodna magaraysaa musuqmaasuqi ugu badnaa awd ee Soomaaliya soo maro lagu eedeeyay yaa magaraysaa idaacadihii taagan shacabkii Soomaaliyeed hooyooyinkii Soomaaliyeed aabayaashii Soomaaliyeed iyo dadka nagi oo dhan bay jahwareer ku ridayaan waxayna macnaha waa khalad weey wax hore ayaga loogu sameeyay maaha laakiin waa wax ay ka shalaayi doonaan oo magaraysaa si sharci intii la isula fariisto ay magaraysaa ka shalayn doonaan weeyaan ma sha Allah madaxweynihii Soomaaliya oo dalka ka soo maqan oo hawl qaran u soo baxay in magaraysaa madaxda caalamka iyo beesha caalamka la kulmo inay daba maraan oo ay fowdo bilaabaan oo ay dalkii khalkhal geliyaan horta wax aad iyo aad caalamka iyo Soomaali Maxamed ay u cambaareenayso way taas halka ka dhig markan waxaan rabaa maanta insha Allah haduu la yiraahdo inaan kor istaagno waxa maanta socdo iyo siday wax yihiin balna maanta si fiican u kor istaagnaa shalayto saad idaacadaha ka daawanayseen ama aad idaacadaha ka maqlayseen waxaad maqlayseen iikaadi واحد لمسي رال نقطة codkayga see loo maqlaa idinku maasan codkayga waxaan umaleeyaa naasi wanaagsan maqashaan insha Allah duleera iisoo qora akhyaarta sharafta leh taageerashada saxda waxa soo qortaa duqbalow codkaaga si wanaagsan qurux badan baa loo maqlaa ama taleefanka ka bax filaafan ka bax dib ugu soo noqo ugu dhaha aadiya because bluetooth ka qabtay gaariga bluetooth ka qabtay mar rabe bluetooth ka hadlo codkayga see loo maqlaa idinku maasan meel walba aad kaga sugantiin adiyada hadii aad daawanaysid waxaad tira duqbalow si fiican bal uu maqlaa aadiya iisoo qora aadiya mas'uudka waa xogo iga dambeeya iisoo qora codka duqbalow sidee la ii maqlaa duqbalow see loo maqlaa duqbalow codkiisa ka war si fiican Xamdi Axmed aad baad wanaagsan tahay hire adigana aad baad wanaagsan tahay ma sha Allah khair sharafta
waxaan rabnaa waxa jiro iyo waxa socdo inaad sida ay tahay u kor istaagnaal rabaa idaacadahan iyo waxaan ordayo iyo fowdan socotana inay ummadda fahmaan baa loo baahan yahay in magaranaysa dalkii Soomaaliya khalkhal la gelina saacadan wax ummadda Soomaaliyeed ay soo dhaweynaysa maaha kow Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ama magaalada Kismaayo maleeshiyaadka ku sugan sidaan horeyba idinku sheegay daraata markaan halkan ka baxayay give me 22 hours isiya idinku yiri waxyaabo badan oo hadda idinkeeda ka qarsoon banaanka u soo bixi doona aad iyo aad okay Ahmed Madoobe ama rajiimka Kismaayo fadhiyo dowladda Soomaaliya intay idaacadda soo istaagtay marnaba ma aysan oranin waxa iyo saas u rabnaa ma aysan oran dowladda Soomaaliya warqad bay soo saartay oo dastuuri oo ay leedahay waa in shacabka deegaanada Jubbaland degan iyo maamulka barta ka jira dowladii horeeto inay qabato doorasho xor iyo xalaal mana accept gareynayno waxa loo yaqaan saddex nin keena hal nin ba kala bixi waa musuqmaasuq waxay damage gaarsiinaysaa doorashooyinka guud ee dalka ku soo socda iyo damage gaarsiinaysaa wixii sidaas ku socday ee xaaraanta noqday dawladdu waxa weeye gacanta ku dhufatay waxay tiri ma aqoonsanin beesha caalamkana waxay tiri ma aqoonsanin xaaladdu markay halka taaganto halka ay marayso saddex madaxweyne ka soo baxay magaalada Kismaayo madaxweyne Cabdirashiid Xidig madaxweyne Cabdinaasir Seraar Maax iyo madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam saddex madaxweyne dastuurka Soomaaliya iyo sharciga Soomaaliya waxa ku xadgudbay oo si cad oo bareer ugu xadgudbay dawladii hore ay ka jirtay Jubbaland ee hadda aanu bixiyay maleeshiyaadka cid aqoonsan aysan jirin Ahmed Madoobe aniga maanta isku waxa weeyaan isku title baanay waa civilian ana civilian bana yaa waxay ku xadgudubtay dastuurka Soomaaliya waxay tiri cirka dhulka badda yaa xiran ayadoona awooddaas aan gaarsiisnayn maamul goboleed awooddaas uusan heerka wali uusan gaarin yaa tiri cirka dhulka badda yaa xiran taas waxa ka daran in dalka Soomaaliya oo madax banaan oo calankiisa uu adduunweynaha ka babanayo in nimankii maamulkaasi hore ka tirsanaa waliba guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dadkii loogu magac daray marka ay ninkii loo ranay xamsiyo yaa si toos cod waxa laga horay sirdoonka inay yiraahdeen wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya iyo magaraysa sirdoonka Kenya ninka haysta dalka naga soo galo waa damage weyn way dawladda waxa loo baahan yahay macnaha wixii loo igmaday iyo hawshii loo dirsaday inay qabato dawladda Soomaaliya waxay si toos ula soo wareegtay hawadeedii waxay si toos ula soo wareegtay immigrationkeedii waxay si toos ula soo wareegtay wax walbeeto oo mas'uuliyada dhabarka marka hore ummadda Soomaaliyeed ka saaratay maadaama Kismaayo uusan ka jirin maamul la aqoonsan yahay maadaama aysan Kismaayo ka jirin dawlad accountability oo lagu xisaabtami karo wixii dhacay iyo wixii soo socday wixii dhici doono lagu xisaabtamo maadaama ka jiro dawladdanada awoodeedii iyo mas'uuliyadeedii wala soo wareegtay okay Ahmedowe saddexdii nin buu keensaday midku doonuu kala baxay doorasho been buu qabtay asagii baa isku caleema shubay asagii baa yiri madaxweyne ahay kadib halkaas fariistay 26 bisha September badar qabsaday waan is caleema saaraya buu yiri caleema saarka Sheekh Maxamuud aqoonsi looga baahno Sheekh Shariif afbi loogama baahno inuu magaranaysa asagana uu magaranaysa wax aqoonsado dawladda Kenya loogama baahno inay wax aqoonsato waxa la rabaa wax aqoonsato waa dawladda federaalka Soomaaliya ee ummadda Soomaaliyeed dhisatay ummadda Soomaaliyeed ku midowday yaa laga rabaa inay aqoonsato maamulkan wax ummadda ku qanacsan tahay dhexdhexaad u noqoto ayada laga rabaa okay 26 waxa ka haray dhowr cisha kaarta maanta waxa weeye waa 22 ama 23 aad iyo و23 way maanta okay Ahmed Madoobe wuxuu yiri daraato ana live baan ku jirano doqolo bartan ba ka hadlay golo wasiir maleeshiyaadka barta jooga Ahmed Madoobe uu horjooga u yahay waa fariisteen waxay yiraahdeen 20 bisha ka bilaabato ilaa iyo 26 bisha waxaan bandow saarnay maamulka Kismaayo ama dekad iyo bad iyo dekad iyo eelboor haday noqoto wax ka bixi karana male wax anaga aan ogolnay ma ogi kariso macna qaabka ay wax u dhigan kaaso wax shir qabsan karana malaha cuna qabateen bay dadkii reer Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland saareen ayaga oo rabo hawsha ay rabaan oo caleema saar ku sheegan inay sameystaan aadiya maxaa dhacday marka wixii dhacay iyo waxa sida yihiin ba ummadda in ay ogaato ummadda ay la socoto yar loo baahay hadalkayga aad u dhageysto حسن الشيخ محمود وحوقها مدحوينه فدرالك الصومالي
sheekh shariif sheekh axmed afbiijo wuxuu ahaa madaxweynihii kumeel gaarka ee dowladda kumeel gaarkeed ee Soomaaliya labadaba dalkan waa soo xukumeen waxay arkay wax soo gaarsiiyeen cid walba waa la socotay madaxweynayaal hore taa dalka soo maray lama arkin allah naxariistee mudane cabdullaahi yuusuf oo xamar dhex taagan oo farafareynaya dowladdii sheekh shariif lama arkin xafidullah mudane cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweynaha hore dalka Soomaaliya oo intuu muqdisho soo galay farafareynaya dowladdii xasan sheekh maxamuud lama arkin laakiin labadan jaahil sida la ii sheegana haasha jifa ka soo jeedo ee u maleeyo in wali dhicii iyo kufsigii iyo jiigad fufujisadii iyo isdilkiina wali socotay foodii socoto niyadoodii qalbigood ayagoo madaxweynayaal soo maray aana ogeyn title-ka iyo qiimaha ummadda ugu fadhiyaan iyo waqtigan oo kale inay ka cararaan media aysan la socon yaa shalay maanta arkaysaan idaacadaha iga wareegay okay halka markay maraysaan waxaan rabaa inay ummaddu wax fahantaan rabaa afbiijow inaad duqbilow fahantaan rabaa guurguurtow inaad duqbilow fahantiin shacabka Soomaaliyeed ilaa shacabka waa annaga weey dastuurkanaga waxa ku soo xadgudbayo waa dowladda Kenya iyo dabadhilifkeeda iyo Axmed Madoobe weey maanta waxa farmaajo iyo khayr ay celinayaan waa afbiijo iyo guurguurtow inaad barita tartantaan baad rabtaan nidaamkaad ku tartami leedeen inuu sanburburin ayuu maanta khayra u dagaalamaya farmaajana u dagaalamaya afbiijo hadalkayga aad u dhageyso madaxweyne ugu horeeyay aad baa ku jeclaa madaxweyne waxa taa madaxweyne ugu horeeyay ee waligay Ilaahay ano ilmo yara taariikhda on dhowr jeerna aan public ka sheego maalinta Minneapolis imaanaysay magaraysa halkan Minneapolis imaanaysay jaamac jangali iyo shariif sakiir iyo isla socotay waxa ahayd madaxweynihii ugu horeeyay ee aniga rajo Soomaalnimo geliyada ahayd maantana madaxweynihii ugu horeeyay ee rajadeedii diliyay baatay rajada waaga gelisay dhowr iyo 10 sano ka hor rajadii aan ka qaaday yaad maanta dilaysaa ceeb garaysa ceeb dhageyso afbiijo waa madaxweynihii ugu horeeyay ee meel babliga oo dad Soomaaliyeed fadhiyaan iyo TV Soomaaliyeed uu fadhiyo lagu weydiiyay la yiri ra'iisul wasaarahaagii iyo wasiirkaagii qorsheynta ayaa badii bixiyo dalka KSC baa lagu yiri madaxweyne maxaad ka ogeed maxaad nooga sheegaysaa wali way qoranta wax duuban wax jiro weey indhaadeegan la yaabanahay magaraysa indhaadeegan iyo qarracdan ilaa nin jingad fujisan jiray magaraysa suud baa hebel buu watay buu maanta ku hadlay ee idaacad public la soo fariisto yiri anigu waxba kama ogeene hal la weydiiyo Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur hal la weydiiyo war Soomaaliya waxan siyaasadan hoos goori weey macnaha Cabdirashiid magaraysa Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxaan ugu dhaganaan u weydiinayna dhageysto way u weydiinayna badanada la gatay ama badanada la qaatay maxaan raggaas shaqaalaha ah ugu dhagan ilaa adaa madaxweyne ninkan baa madaxweyne dalka ka ah dhageysto wuxuu public afbiija ka yiri uu dhahay anigu waxba kama ogeena hal la weydiiyo Cabdirsaaq Atoosh oo BBC u shaqeynayo yaa markii badanada Sheekh Shariif uu gatay ee uu Kenya ka gatay xildhibaanada federaalka Soomaaliya markii la horgeeyay yaa wariye Cabdirsaaq Atoosh baa wareys ka qaaday asagoo faahfaahinaya xasan qayaandhiine Sheekh Shariif asagoo faahfaahinayo oo waliba sheegaya sida badda macnaha waxa ay heli doonto waxa ay tahay waxa ay u baahan tahay asoo dhahay yaa codkii la soo dhigay hadarna dhageysto dadkaas aan rabo maanta inay tay media iso istaagaan uu ku qasban yahay afbiija maanta inuu dhawaaqo inuu Kismaayo u ordo ilaa Kismaayo ninka jooga ragga wata waa raggii Kenya weey macajalad bay ka duubeen ma soo bahdilan bay soo qabta garan meen afbiijo adaa lagu weydiin laakiin rajada ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed dili maysid ma dilaysid ma dhimanayso dalkan dhaqaaq socoy Axmed Madoobe iyo dhuxulaysti FBG waa la idin qaban waad bahdilaanaysan sidaad hadda u bahdilantii bad u bahdilaan doontaan dhageysi ku qasban yahay in Kenya waxa Kismaayo ka wado soo madaxweynihii astaantii qaranka Soomaaliya inuu maanta u cararo Kismaayo u cararo yaa Kismaayo jooga marka ma qof Soomaali bay maanta ka qarsoon tahay waxa Kismaayo ka socdo iyo dawladda Kenya waxa ay wado iyo qaabkay wax u wado ma cid bay ka qarsoon tahay
cidna kama qarso dowladda Kenya waa ta ku faanayso inay Axmed Madoobe geysatay Kismaayo dowladda Kenya waa ta ku faanayso inay badayda qaadato dowladda Kenya waa ta ku faanayso inay magaraysaay dowladayda wiiqdo dowladda Kenya waa ta ku faanayso inay aniga iyo madaxdeeda iyo shacabkayga ummadeeda Soomaaliyeed ay bahdisho maanta ninka u ordayo ee laga celinay ee afwa afbiijo waa ninkii badda siiyay Kenya way dhageysto ونكي بدأ الصحيحي نكيش نكي بدأ الصحيحي كينيا إني قادته إذا عاد صار فريستوا أفي شوية تضوي حلين محاو عائلة ورما عائلة أفكي سوا جدود أفضل ما يربوا لي بيجوا لغي ورويان وعلى قرية ما إلا دقبله وأكتفيش توي مقرس أرجع عنهم قادر يدلي فيه لكن واحد جيران كشكي وحاول أفبيجو إنه ما أنت أرض كينيا إنه ما أنت عركية إنه ما أنت كسماي يدولك ضلك النجا اللي وصيه إنه بيحيه ده دمير كيساسي وانك شالي بدأ إذا قطعيه حسن الشيخ محمود وانك محكمتك ياس رليل بوليه وكل جد وراسك لكن رجو كلو ودني سين رجو وكلو ودني سين هنا نوا ودني أو أفكو كسرتها مقرس نندى ودني ولا شيء أو نيجي يصير دعاك يصير كدرته شرفت dalkiisa cidiisa ma garaysaa ila shalay dhageeyst afbiij Kenya badan iyo dhulkan adaa diray in Cabdishakuur wasiirka qorsheyntu ah Umar Abdirashiid shaqaalaha ugu ahaa ra'iisul wasaaraha ugu ahaa adoo nin weyn oo mas'uul oo madaxweynaha ka dhigan oo aan dalkii ku dhiibnay oo aan carradii kugu aaminay oo fil Soomaaliya ku fariisin سمتي نك إذا علّى سفرستي يري أنا جوار كما هي هلا ودي عمر عبد الرشيد هلا ودي عبد الرحمن عبد الشكور سيرو ودي you the president of Somalia تاس وابلغ سو جود بمانت دقيش ما أنت واحد أرضي ست سو شيء ما أنت واحد سر جرائد قبل ست سو شيء ما أنت واحد على رئيسد أذربت إن بحسد سو كسمايا ما أنت واحد مقرن شايد ديارة ده اللي جالسوا الربيع على عالكي أو هنت قدرتين سو كسمايو كي ربط ما أو بدأ يدير ربط إنه قادته أو مقرن شايد دجال أو جد النار أنت كي ستي ربط الدولة ده يدير كبر بريش سو ما أنت ما حسب محوها إنك أف بي جو إنك ما تردي ورا دل كان دولة بكدرت غير بانك نش هي ولبا ورا الصومال إسديسي ورا فيري حسب إنك لا شريف أف بي جو دقيس Soomaali intii isdishaa la kala tagay la kala carray wala shal adu ordiyad soo ordo tibad ma garaysa oo tiri dawlad baan rabnaa kan baan rabnaa saambe wala madaxweynayaal hore soo Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne soo Cabdiqaas Salaada madaxweyne soo wala cid ku garab taagneedo dastuur ma garaysa sharciga iyo dawladnimada arabtiinad fulisha cid ka hor taagneed miyaa jirto may laakiin maanta adigu damiir malid ninkii kursiga ugu sareey dalka intaad gaartay dib u soo noqdeen maanta idaacadaha taagan baad ninka maanta badaydii iyo ciideedii dhulkayga la qaadanaya cadow qaadanaya عدو وقادري نك ما أنت كنت هجاري أور ضياته ما شرف بسؤال كوارت هي قاري ساق هذا شفت غريفه قاري ساق هذا كاري دجال جلي غير كاجا أبجل حتى أبجل كاري دجال جلي بركة واي هاي صاب برصدان دتك الصومالية ده برتا كوسا نقد قرية أنت هذول يبتو برصدان الدارات كي إساقة يرحوات حمر كوسا نقد أرض برصدان تاون بكوارت وأنت كلية كوارتي أفبيجول لو رأد معناها ما أنت كسعت وأنت وياك God tell them سو فريس إذا عدا هرتي أبجالو كعدة قريها قاتة بربرية قريها قروح بدن يلا يلات كان مقدسة لقد الشيء يلا من الله الشيء يدولون نمنا صار نقطة الدنيا كلها إلا كسلبة أديرك هذا الشيء دراد أديرك اسمك لقبتان اسمه ريبتانو اسمه لسانو ولا اسمه شكتان بوتو يا قف كذا نقول ديجان بقول مل بكي سومالي مل السوق والله توان دولدود بالسوالي نقرش 10 government توان دولدود وكل الدوام بالسوالي نقرش أبي جو لقيس وحمانته فرماجية خيرة شريف حسروا حسر محمودو إذا كان علينا يلله ودورشنا الريف أوف بالوسم دورشنا أحمد هو كشبت عندنا أكسبت جرين ميس adiga isu turo adiga aan ku digo isu tur adiga yaa lagu leeyahay way ordaysaa diyaaradda xagee because sababta u socoto dhan buu daqbulo ogiyo xogtaada dhan ba gacanta ku heena sababta ninka Kenya badda u saxay lacag nin waxa li af wax cun xishoo bal yiri garas af wax cunay xishoo wad ku qasbanta inay dawladda Kenya kaarkii ugu dambeeyay ay isticmaashan noqdo ma own president inuu noqdo dhageesh
ما own president oo madaxweynahayga aniga dalkayga soo lead gareynay inay dawlad kaleeto isticmaasho oo kaarka ugu dambeeyay ee Kenya isticmaasho inaad Sheekh Shariif oo maanta noqotid wallahi Soomaali ku aragtay Soomaali maanta ku aragtay Soomaali maanta geeska gees meesha joogtay intii yarada credit-ka ku wartay ku dhamaatay maxaad ku booteeris suuda soo wataan anigu magacaabaya suud buu wato muxuu ku darsaday leedahay war dawladnimada Soomaalnima lagu yimid aad iyo aad Soomaalnima cid walba ku timid adiguba shalay khamiis baad wadatay Sheekh Shariif oo shalay adoo khamiis wato oo wadaade oo quraan dhigo oo education lahayn oo wax barasho lahayn yaan Soomaalnima kugu jeclaanay madaxweyne ka dhig laakiin waana khiyaantay مع الدكسي دلكيسي قطيباتا ما انت محا عيل كان ويل صومالي يا قبر الصومالي ما انت محا لعيلنا because you adiga وحاده هيد مدحويني دلك صومالي adiga دهيد كينيا تصحيح دي بدايدي مركان كويدينا وحاد تري انا عبد الرحمن عبد الشكور انا اسكبر سنه شكل عبد الرحمن عبد الشكور يا عمر عبد الرشيد هلا ويدياتر way ka dabatimiid codkaaga banaankalka dhageys xaga ay dhigay Shariif maanta inaad adiga iyo ninka in adeerkaaga isku qabiilka tihiin inaad bahdilantihiin Soomaali maanta idii aragtay dhageys idii aragtay madaxweynahayga horeeto Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkan 4 sano soo lead gareynayay oo dalkan ma garanaysaa dastuurkiisa calankiisa lagu aaminay sirtii dalka dhan gacanta ku hay maanta inuu madaxweynahayga u ololeeyo doorasho rif of lagu sameeyay oo 3 nin keena hal baan kala bixi ma garay 3 nin keena hal baan kala bixi doorashada ugu musuq badneed ee abid Afrika ka dhacday beesha caalam ku tilmaantay inuu maanta Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynihii dalkayga soo noqday inuu maanta intuu mikrafoon soo qaato inuu qabiilkiisii maanta kiciyo uu yiraahdo reer hebelow ha dul qaadanina kawaran wafiiri bal aqligaaga geli Soomaaliya aqligaaga geli oo ka war ma own president madaxweynahayga dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 4 sano dalkayga soo lead garanay intuu maanta mikrafoon soo qaato uu yiraahdo abgaalow ka dagaal qaada dilab daaroodka bursada inuu yiraahdo maanta shame on you baan ku leeyahay aadiyad shame on you dawladda Soomaaliya dastuurka yaasiinayo inay dalkan dajiso uu noqdo dal siyaasadiisu degan tahay inuu noqdo dal ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed 30 sano dagaal ku soo jirtay inuu dago waa dastuurka siinayo awoodda dawladda Soomaaliyeed sida ay tahay bay u hirgalaysaa u shaqeynaysaa sida ay tahay ya awoodda dawladda Soomaaliya u hirgalaysaa u shaqeynaysaa Axmed Madoobay noqotay Soomaaliya ninka dalkanagi iyo dadkanagi iyo ciidanadii maanta rabeen Kenya ku daro yaad Shariif oo u durbaantumaysa yaad Xasan Sheekh Maxamuud oo u durbaantumaysa dhageys yaad u durbaantumaysa maanta oo u qaraacaysa ilaahay leedana bixiya Kenya hala siiyo hala bixiyo dalkanagi baad maanta u durbaan qaraacaysa no way awooddanada dawladeed waa inay soo noqotaa way nobody dastuurka ka weyn male amarka ay dawladda soo saartana afbijaanan jibin karin gurgurtaana jibin karin ku horo dalkan wax ka soo qabto feeg oo maanta rabeen dalkanagi Kenya ku daro yaa wallahi jibin karin waraa Xasan Sheekh Maxamuud ku tiray dhageys waraa shalay markaad hadda maanta waa si afifadhiganayso ku arki because you know inuu duqbulow soo gal doornta laga hadlo because muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogan xaqiiqda ogin dawladdanadaan jecelnahay nabadii nolol baan jecelnahay farmaajaan jecelnahay kheeraan jecelnahay sharaftii iyo dignity ummadda Soomaaliyeed midib u socoliye Axmed Madoobe rabnaa in laga taqaluso u dibdamba siyaasadda ugu sii jirin tuug dambeeto oo khaayana oo dalkanaga imaarad waraa fiiri Xasan Sheekh Maxamuud waa si afifadhiganayso waxaa la duqbulow way soo gali doono lacag bay dawladda siisaa hadda way nagu tufi doonaan maxaa lagu tufurta ka hadleynaa yaa lacag anagana siinay anaga taraaga maskoto shaqeynaya dhageys because of way soo galayna muwaadiniin baan nahay waxa way idaacadahan ka of dheernahay runtaan ka hadleynaa dalkanaga wanaagiisa sheegaynaa ficnaantiisa sheegaynaa quruxdiisa sheegaynaa intaas waa si afifadhiganaysa waa my own president okay Xasan Maxamed marka shalay rabtay inay wax hagaajiso oo madaxweynaha dalka ahayd ee maamulka iyo ma garanaysaa wasiirada iyo wax walba ay ku dhisnaayeen waxaad rabtay inuu dalkan hagaagaad rabtay waa si adiga aad nagu tiraadi weeyaan arona waxyaabaha dhacdhacda iyo adiga islaantaada guriyaha xadeen iyo waxyaabahan gooni weey aniga ma cadaan karaan inta ayada ma garato
لكن وحارتي إن ما قرنا يسال لجوه تاجره ما قرنا يسال دولة لماذا يا نظام يا بوليسي أديك أو تحسق محمود إن لجوه تاجرت ماذا أركين الدقبلة يا وزير كلمة دعوة أنت إذا عاد سويس تاجر غير كوك إلى ماذا أركين لقيش reer kugu kicinayo oo cid kugu kicinayso oo mucaarada kugu sameynayso mark waliga farmaajo baad arkay ra'iisul wasaare soo noqday waliga rag badan oo intaas fiiri intaas oo ra'iisul wasaare intaas soo madaxa dalka soo intay meel kugu yimaado ku dhaliilaya ama kugu dhagan ama dawladdaada inay dumiyaan ama cadow kale u hanqal taagay maad ark laakiin adiga adoo madaxweyne soo maray hatta maanta inay isqabtaan waxaba dadka adduunka la yaabay haween adduunka waxa uu la yaaban yahay ee maanta laba madaxweynayaal oo xilalkoodii soo dhameeyst oo isku reere oo isku cide oo isku qoys oo inta idaacadihiisa dhaaranaya oo reerka madaxweynaha kala ka dhashay dadkii Soomaaliyeed dhaaranaya wari adduunyadan fiiriya waxan adduunyadan fiiriya bal fiiriya adduunyadan xasan maxamuud iyo sheekh shariif waa isku qabiil way maanta maxay sameeyay idaacad bay soo qatay way dhaar yaa u dhaaray daaroodii isaaq bay u dhaaray way because salatu waxba ma adan xasan maxamuud because ara waxay ku tahay shacabkaaga baan hay madaxweynaha ka dhigtay waa ku sharaf you need inaad baratid si dadka loo sharfo you need inaad baratid dawladnimada you need inaadan booteerin booteecida xogaa ma qaadays nin walba country sari tuuru ka yimid magaras caasimada yarteed ku booteeraysan hadii hal maalin la go'aan laga qaato sidan hadda u dhaqmeysana ku socotaan waa lagu kala tagayaa meesha yaa rabtaa markina xukunta afar sano qabyaan ninkeeda dhameys afar sano kala rabtina lagu daro afartii sano taa dhameys maanta ana madaxweynaha dalka Soomaaliya radiyallahu anhu mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ma garaysaa waad quuri laadib kas wanaaga u qabtay fiinaanta uu sameeyay dawladnimada uu keenay baawarka ummadda Soomaaliyeed iyo ma garaysaa hawada ummadda Soomaaliyeed iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed uu soo celi yaad quuri laadeen waad quuri laadiin oo sameeyay waa madaxdeeda weeyaan aad ugu fogaan ma laakiin runta loo sheegaya ومدحونياشيدي دعادو way kacda habaarkooda uu kaca macnaha ku fogaan maayo madaxweyne maxamed cabdullaahi madaxweyne xasan maxamuud iyo madaxweyne sheekh shariif aad ugu fogaan laakiin runta laga hadlay magaraysa xaqiiqda laga hadlay maanta adoo madaxweyne ah inaad warlord ku noqotid adoo madaxweyne qaranka ummadda Soomaaliyeed war waxa waa taariikh qormish qaranka Soomaaliyeed soo noqday inaad maanta warlord iyo reer iyo harti abgaalay ka maanta inuu madaxweynaha aniga ugu dhaw madaxweynaha inuu maanta aniga arinta igu dhaw waa ceeb caleeg wey xasan maxamuud dhageesh adoo madaxweynaha dalka Soomaaliya oo dalka liid gareena yaa Ethiopian yaro sarkaal yaro askari oo gabar la yiraahdo yaa farta kugu yeerdir wuxuu doono ku qori jiro waa lagu bahdili jiray fiire taariikh qoran oo meel taalo wey waa gabar magaraysa ma fiir wasiirkaaga arrimaha gudaha ma garanaysa aad magacaabad waxa ma ahan adigu waxa ma ahan wasiirka arrimaha gudaha marka ka shaqeeray wuxuu sarkaal yar oo Tigray oo gabra la yiraahdo wareegay wuxuu doono sameeyay cid doono shaqada ka qaad cid doono kari adigana ku sheegay kaamirooyin kugu xirtay saad guriga madaxtooyada ugu dhaxnoolaad fiiri kaamirooyin kugu xirnaa safaaradda Itoobiya ku daawanayso markiis sasa u bahdilay muxuu sameeyay khayr oo dalaska gabru fiji muxuu maanta farmaajo u sameeyay caalamku loo istaaga New York buu hadda ku sugay insha Allah waan u tagi doonaa magaras New York buu ku sugay caalamka u istaagay wadamadii dariska adiga ku quursan jiray sarkaalka ku soo diray maanta madaxweynaha naga fiiri madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhageyso waxa weeye madaxda ugu sareysa geeska Afrika maanta waxa weeyaan nala kuna si iigeey ila kuna siiyay marayso adiguna heerkaas Soomaali ka samay soo quur laada wanaagii dhageysta marka hadda amarka soo baxay uu fuli amarka soo baxay dawladda in maanta laga bilaabo ay taariikhdu 23 tahay ilaa 26 waa amar duqbulo ay dawladda bixinayso way hal diyaarad inta muqdisho ka dushka Kismaayo tagayso ma hal diyaarad oo dalkayga intay soo gasho Kenyan wadii ajnabi wado oo Kismaayo tagta hal arka marka wakaas inay dawladnimo jirto in kala taal kala bararayo inay dawladnimo jirto inay dawlad ka jirto Soomaaliya iyo in kale la kala ogaanaya soo qaada xasan sheekh maxamuud oo tiknika soo qaada orod warlord samee sida cali mahdi iyo ciidid samee magaalada burso hadda ka layd ka dumi ka laamiga gub orod guryaha dejilay orod carruurtii maati isbitaal ku jirto doox dil kufso bacamadow ka wada dhigo go ahead do it
وفولي لكن إن دولتنا لا موجية أود هذا لا تصو إماراتنا وسوحبك قبل كرين كينيا وحبك قبل كرين توك أف بي جلو ومد الله صدره ربنا وباب يقول كيس وقطه وحاول لقعت كذا انتشيا قول بالمريا مواد والبقى الصوماليات هويا والبقى الصوماليات بس والبقى الصوماليات we proud of our government right now proud بكونها إن والله دمبته يدقال أوجا دمبته إن ضل كيجا مقرسايا ضد كيجا ودلوده وقبيل كنادعيه ورير كنادعيه عيد كنادعيه هوس ليدقو over ويصور ما تدر بعد وإسكو صور ما تي إس over ويصور ما حزق محمد حويري مات رير مقدسو كع ومدحويني دنا دلك الصومالي وي رير مقدسو هبا مقرسايا أب قالوا كع قريها قاتم مات on president مدحويني قلنا ما أم بريسنت وحيري كعب قالوا ما أنت قريها قاتا دقال لمو يري شيخ شريف السوقرة باطو دقال ناو أبقال ودد الدولة دمدا جعل لكن إذيك الله وأنا دعوتان إن كيسنا صادق وطا دارتان وأنا مقرر الشاي ليلة القدر ومد الصوماليات الله صدري وأنا دعوتان وي سوح أوضو سوح الصمانية دولة دمدا وحا إيتاي قام كذا نظام كذا وأنا دعوتان ويسوح ذو قبرتان اللي نجاهل بعد هذا بقيست مرك اسمعوا وح على مسار أو كذا عمله مليشيات كحمدوا داون إنسان right yes وح على مسار أو اسمعوا كذا عمله بدحونا مركو صوصوا أهو بينو مركو ردنا كوميونتي وحلك كل مرة ربع مليانة يا لكن هذا حالة دق تمات بدحونا نقضوا وير وضلك يدب يقول نقض إن شاء الله دولا وأنا دب بدحونا دب ونقض قرصة هدية صورة قلتها وح اسمعوا على مسار أو كذا عاية هبيراتين مجرد أحمد مذوبي مدحوينه مع دولة فدرال كصومالي أمر كذا صعون شيخ شريف بدن أساقط صوابتو كسمايا وقو سعود وقو أرضينا وكي يكو قصبتو وكاركي قدام بي كي استعمالي يسوي وكاركي قدام بي كرنت كاركي قدام بي الدولة دا كينيا لا صبح ذوين إن مدحوينه يقولك استعماش because العقبو عنا العقبو عني مقرسة بدو كقطي وأقتهي وحاول كفشلني أنا الوير وأنا كسمايا تقطعنا الدولة دا قيلي بوق لسوا الوير أوريرك هكي عدنا كي عمل الوير تقيس وكاركي وقدم بي الدولة دا كينيا استعمال الشيخ مدوي وأنا قبلنا الدولة الصومالية ويقبل تكور حد عد أمرك الدولة دا بوريك رمالي ما أنتو حكي بلادو إلا اللي حلاتك واحد يارض تقيس مالي وأمر الدولة دا يا أمر الدولة دا كوين مرك قفك أمر الدولة دا كوين صار دكرة الدولة دا أمر كذا جمي كره هو جد كذا أرد مدشاب أسبارة ديك مرك عيب بيدي كنت هاي إذا كل بنن أو إسكوريره أو مدحوينيات طبلوا هذا مصر بيبو طبلوا هذا مصر بيبو سيدي تابو وإنه رك عشان حس شيخ محمود أي شيخ شريفه لبنن إسكورير باتيهين باش هوية ولا شيء ولما باش أبقى ولا شيء أياتهين وذحشون ويسين فيري سيده معلمة أدكتو أو مدة الصوماليات أدكتو أو يمد النقطة أو يمقرس على الصوماليات وصان نقطة يعني أنا قد القاطي إستاق دول قاطي رحوات دول قاطي قبائل الصوماليات دول قاطي أيك والله بنو أبقى لي مدحوين مسكوا حكتين تاريخ الصومال مدد كات كبدنتين مدد كات كأذكتين مدد كات ديري جرتين نو عد كأذك الصومال ملا لكن مركل الله أركي نوعا إنا تهين وقاب كده ما أنت أتهين مركل الله أركي لا ديسكفر قريه قاب كاتين لو قال يا صومالي انت ايدي فكرت فير صومالي انت ايدي فكرت علي اوكي بالريركن هدغو وقريس هدغي سي ودقرن ويسن ما انت ترادان اسكل ريبن ور صومالي انت سي نود القات شيخ شريف بن مدحوينها ونود القات ور حسن محمود بن مدحوينها ونود القات او 8 سنه اسكو خيغتو يان ما قريس مدحوينها ود القات 4 سنه او صومالي ست ود قادن لاد قوريغا قاتا ديدا دعا ان بوبنو اسبارات دغنا waxaad ku jirtaa ka waran تايتلكي شرفتي عزقي إيه واحد صامر تودن بقى واحد المانت فرما جانا أدب خميس بوت شريف أفبيجو شري مركز إيماني سمقدش مع الدك شوية حتى مقعيش أنقرن شيء وحلو قرأ أنقرنين مقرس دينتي مقرس هاي خيانتي أضو شيخها مقرس هاي دينتي خيانتي مقرس هذه هذا الدل كاجي خيانتي بدي الصومالية كقدت كي كقدت بدي الصومالي يتكي ما أنت قص بنتنا بالكرو عرت
حسيق محمودو هذا ما عارف أنا مير بدن كاتا جرسنا وجرت لكن مركز سان نقطة قبيلة إسكال جريسة أنا هذا رجال الله تعبتها قلنا فير درجات بكرفانك سوقاتان تقبلوا رنتو دي شيء دولة النقاقضي حس على غيره يفرماجو والليلة القدر إلهي ومدن أصود دريوي بجرسة مهر استاي كرتان دولة دمدا سل جرسيرية واللي أفر سنة كله يسون نقطونا إن شاء الله وهذا الصومالي يسيجري شو وهذه الصومالي إني سيد تلرو ومد الصوماليات بعض هو ينك صومالي أفر سنة كله الناس ونقولين أرقوري قاتو قد عجارن أصبعي مركوا شيخ شريف ناقب صدو دركين لي حسق محمود مجرس هاي مدينة هاقب صدو دكت خوب كدكت كعلى ذلك بارا مرك إسبارك قاعدة ذلك يا هذه نما قال كسكت جوا مدح ذي هريتو لكن وافش البير وحاول الدعاء ذو واقع ذا هوارك وذا واقع لكن هو مدح ريال فشل المويه وفشل كدونك أحفظني هل هاجدك مرك اسمعي معنا يا أحمدو جروب كيس أحمدو أذر مدحوينك كمان نقول يسيد جبلان حقيقة ضبطه ما تيد مدحوينات جبلان ما نسي هندو تي مدحوينات جبلان هذا مركم مدحوينها صور نقضي إن شاء الله وكان نقضي ديسي أم حجوجا هذا نيويورك بجوجا ودبوا النقضة وكل نقضة مقدسة كل نقضة شركة جوه الريل فريسون دون وحاول وزارة الرماها جودها هبراعي دورشة جبلان بلد قرية إن شاء الله دلها جبلان دورشة كده عيسو حرقي حلال بكده عيسو مدحوينا للدورنا يا ومدة كاسان متلي دونا إن شاء الله حسيق محمود يا أفجدود أفبيج الله ماذا وفشل أنت تاريخ الدواء كيدين كلش مدحوين نضلك سمر ودارنا أنا أسود وتو أو بارسا وتو أنا عم حاوش نجيسه يس أتبياك سوق لي سياسة هذا يركي حسن ده رويس بكسوق لهذا كده فرق هذا معلن دكش أو قرآن كآخرية أو حروه أنا أركي حسن ده رويس كليته كسوق بتاعه كوسو ضرب مقرسة محكمة دي كوسو ضرب ما صار شيء غير عرفت ما يقولوا يسجل لايف كاسسلسو كلانية سكبر إسكون صددوا مرة سومالي وين أوقاتن شيخ شريف وكاركي وقدم بالدولة كي استعمال السوق شيخ شريف ما أنتو سياسة سوق لي هالخميس وت ما أنت أنا قريو يهنتي يوم قرصاي ومليونير الصوماليات دوي وحول العقتها أو كوه لينا معها العق وسقيس تمام العقتها وحول كوه وحول بدي الصومالي وقطي وكي كقطون وحبي أنا عبد الشكور يوم قرصاي أنا عمر عبد الرشيد عمر يعني كل جن نيك بدك قطي من الحوارات دلكها إن دلك كوه من الدستور كل يوم سوا وأنا سجل الله حساب تناوي ما أنت كي كارك قدام بيسي أي استعمال يسوي إن الشيخ شريف هي الدولة دي دوح على الصور كلينا مدحونا اللودي لكن موادن كسومالية ضرن وأوجها وأنا الله صعدا أذياد بنقول رسالنا إن كينيا كدم بيسارن تناد الله صعدنا كينيا إن كدم بيسي أذ الله صعدنا أذياد دقيقة استمر أحمد مذوبي جروب كيسا وفشلنتين أذياد بوفشلنتين كمسي شقين دكتور جبلان مسي جوج دكتور كسمايو جبلان الدولة بلغ السيام إن شاء الله دولة رير جبلان ورن متشو دولة أمد الصومالية دي برتا دقني صوتني سيالك قبيل متشو يا برتا لغا السيام نارا قبيل كلا توكو حد قد بي مجرد سيدا قل مدوك لون نبضيي أي نبض أتمادي أي مقرسة دادكو دي أسميه يان كسمايو جبلان أسمينا لما سنة هدا أتسمن مجرد أحمد مذوبة كوا كجفده كلي يا ضدك رباحة كوا كلوال رباحة كوا كلوال بهدلة كوا كلا تكمه اللي كران ما ملك شقة كميه اللي كران لكن أنا وح ربنا وحاوي الدولة الفدرال كسوارية يسبدل دون كجبلة وحن دوني وحاوي إن جبلان دكتو مدحونية تو نظام في عن ويمادو سونا يكسن وروح بدن مركزي جرس هوش وصعد ديارها نفصحينا ديارها يا نفصحينا وحنو فصحينا نقاله أي حق أولاد فدرال كان فصحينا وحال فصحيا وحول بيت الدولة ده أجابها نجيب اللي بلوسي ديريا لكن أنت مليشيات كان يتوجدي ضل كنا جات سيد الشيخ شريف أفجدود وجوه الريو كان يصدر سنة سي بدأ إيقاع ولا ضمير حماوي مكرسة سي بالحياة والنقطة سي ضل كلا وش خيرش وحاول يكرر عبيس وأنا هذا اللي كنت بواحد ديارات وكله في مقدسه وتجي كركش معي مجرد وأمر الدولة دوي صوبتها إري دجال كنا عن لقبقيا إن مجرنيسا ومد برتاش ديارها القرحيان كبقينا وحنا كبقينا كلت إن مجرنيسا رجع كلا إيجانا مجرنيسا مدحونياشها هوش وضي فوضى نقطة كبقينا سيدا درت الدولة الصومالية أمر بسوسرتي استحلا تكل اللي حلا تكح ديار التجس كذب عدة دون تاتك تمرك أيضا هذه بادي سلامية وواسك تقبلوها وحكى الله أنا وديب لي ويا الشيخ محمودو
adiga inaad ilma adeertihiin isku qabiiltihiin isku reertihiin madaxweynayaal soo maray yaad maanta qabiil ummadii Soomaaliyeed ugu baaqdeen shame on you qabiil ummadii Soomaaliyeed ugu baaqdeen oo tiraadeen hubka qaat meesha ummadda nabadeen lahaydeen meesha oday Soomaaliyeed noqon lahaydeen meesha dalka kala dajin lahaydeen yaad maanta adoo madaxweyne soo maray Xasan Maxamuud Sheekh Shariif adoo madaxweyne soo maray yaad maanta cadow dhulkayga raba inuu qaato Sheekh Shariif Axmedow dadku wadani bay ku maleen jireen laakiin goorta lagu fahmay goorta mutaqas waa laga tuuray isla markii cid ku doorato miyaarta may 2017 waa soo istaagtay cid ku doorato miyaarta may because Somali they know dhulkooda iyo calankooda ciidooda ogeen waxay ogaadeen inaad khaainul wadan tahay waxay ogaadeen inaad badii gadatay waxay ku ogeen inaad Kenya u shaqeynayso ogeen maanta inta ugu dambeysay isku cadeen inta ugu dambeysay maanta aday ku caday aad baan idin salaamaya waawaasku duqbulowha kablo faarax walaalkiis macowkii ka yara bashir balaa matanaan xasan gura saaxiibkiis qarashow dariskiis ku noolow raawna garsee kuusa haajaba kaja lagti macal suuriya banaan weyn shan taabaq abqorre axmedoobade iyo maleeshiyaadkiisi birtu miyaa misbir dambe tiscaleem saarayaan ayagu ma dawana wax madaxu u tagi doonto male wax doon soo fuulina goonin weey waan immigration ku khaldameen baan la xisaabtameen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh